Ada xanuun badan oo ka dhacda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Gaalkacyo, kaasi oo aad looga yaqaan magaalada Gaalkacyo, dadkoo dhan ay yihiin mid ay aad u garanayeen. Mar qura ayaa lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo. Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed Allaha u naxariiste waxa uu ahaa wada bajaaj, isla markaana waxa uu reerkiisa ugu soo dhicin jiray quutul-yoomka maalinta alla wixii uu ka soo siiyo. Laakiin mar qura ayaa waxa ku toogtay ilaalo ka tirsan kuwa ilaaliyo hoteelada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo, kaasi oo ah hotel aad looga yaqaan bartamaha magaalada Gaalkacyo. Cabdimahad waxa uu ka mid ahaa sidoo kale dhalinyarada sanadkan 2022 imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ee qaadaysa qayb ka ahaa dhalinyarada, isla markaana ka gudbay imtixaanka. Laakiin bajaaj uu ku shaqaysan jiray, reerkiisana ugu soo dhicin jiray quutul-yoomka maalinta ayaa waxa gacantiisa ku baxday askari ilaalo ka ah hotel, isla markaana muran yar oo soo kala dhaxgalay. Ugu dambeynna Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed, wiilkan dhalinyarada ayaa ku baxa muranka, goobta ayuuse ku dhintay. Allaha u naxariistay Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed. Geeridiisa eheladii iyo saaxiibadii iyo qoyskii oo u adeegaya ayaa aamini waayeen markii ay maqleen wiilkooda oo geeriyooday, isla markaana gacanka xaq daran ay ku disho bartamaha magaaladii oo ku soo barbaaray, iyo sidoo kale magaaladii xudunta u ahayd ee magaalada Gaalkacyo. Allaha u naxariistay Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaro badan oo hore loogu dilo bajaajyada, kuwaasi oo guud ahaan dalka inta badan dilo loogu geysto iyo dhacdooyin joogto ah oo iska daba joog ah. Allaha u naxariistay Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada hamiga iyo hanka sare kale waayaha nolosha, isla markaana ugu adeegayay bajaajka qoyskiisa una soo dhicinayay quutul-yoomka maalinta hadba alla inta uu ka siiyo. Wuxuu ahaa shaqsi furfuran oo aad loo jecel yahay, isla markaana wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah ee dhalinyarada sportska ay aad u jeclaayeen, iyo sidoo kale dhalintii wax isla soo baranayeen muddo badan ku dhawaad 12 sano. Sanadkan ayuu bilaabayay bartamaha jaamacadda ama barbilowga jaamacadda, laakiin waxaa soo idlaaday hamiga iyo hankii sare ee ka lahaa waayaha nolosha. Hooyo ayaa aamini weysay geerida Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed, aabihiis waa aamini waayeen ehelada. Saaxiibadii ayay ku noqotay filawaa geeridan xanuunka badan ee walaalkeen Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed loogu geystay magaalada Gaalkacyo. Askari ilaalinaya hoteelada waaweyn ee bartamaha laamiga ayaa muran soo kala dhaxgalay wadaha bajaajka iyo askariga oo ilaalinaya hoteelka. Ugu dambeynna waxay sababtay in Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed wiilkan dhalinyarada uu gacanta ku baxo, waxaase goobta lagu qabtay askarigii dilka geystay, kaasi oo hadda ku xiran magaalada Gaalkacyo ee saldhigga weyn. Halkaasi ayuu ku xiran yahay maadaama uu yahay gacan ku dhiglaha ku baxay Cabdimahad Cabdulaahi Maxamed, wiilkan dhalinyarada ee hami sare iyo han sare ka lahaa waayaha nolosha. Allaha u naxariistay waxa guud ahaan soo gabagabowday iftiinka iyo waayihii dheeraha oo ka lahaa nolosha. Allah ayaan uga baryayaa in qabriga uu waasiciyo, isla markaana beer ka mid ah beeraha jannada uga dhigo. Ehelada, qaraabada, saaxiibada iyo ardadii muddo badan wax isla soo baranayeen, sabir iyo iimaan Allah idinka siiyo. Walaalkan wuu baxay, naf kastana way dhimanaysaa. Allah ayaan ka baryayaa gefka iyo geerideena inuusan kulmin. Fadlan waan idin baryaa aan ugu duceyna bartamaha muuqaalkan walaalkan Cabdimahad.